Zelensky ayaa sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee Ruushka, halka qoyskiisana uu yahay kan labaad. Haddaba maxaan ka ognahay xaaska u dhaxda madaxweynaha aan la ogeyn goobta saxda ah ee ay ku sugan tahay? Magaceeda waa Olena Zelenska, waa 44 jir, baratay qorida sheekooyinka filimada. Waxay madaxweyne Zelensky u dhashay gabar iyo wiil lagu kala magacaabo Alexandra iyo Kirill. Marada koowaad ayaa si buuxda u garab istaagtay iska caabinta uu hogaaminayo saygeeda. Maray ka hadlaysay arrimahaasi waxay tiri, maanta ma noqon doono mid argagaxda ama ilmaysa. Waan istijinayaa oo kalsooni ayaan yeelanayaa. Carruurtayda ayaa i daawanaya, waxaan garab taaganahay carruurtayda, saygayga iyo dhammaan shacabka dalkayga. Bishii Abriil 2019, Volodymyr Zelensky ayaa si lama filaan ah ugu guuleystay madaxtinimada Ukraine, isagoo markaa ahaa jilaa iyo majaajilisto aan khibrad u lahayn siyaasadda iyo hogaaminta. Dad kooban oo u badan kuwa ka shaqeeya madadaalada ayaa xilligaasi aqoon u lahaa xaaskiisa Zelensky. Mar ay hadlaysay xaaska Zelensky waxay tiri, ma ihi qof caan ah, waxaan jeclahay inaan ka dhuunto indhaha caalamka. Saygayga ayaa ah inay dadka yaqaanaan, aniguna waxba kama aqaano siyaasadda iyo kaftankeeda, ayay waagaasi u sheegtay wargeyska Vago. Olena ayaa ku dhalatay magaalada Kiev Freehay ee ku taalla bartamaha Ukraine, waxaana ay Zelensky isku barteen jaamacadda magaaladaasi, halkaas oo ay ka baranaysay culuumta dhismaha. Isagu waxa uu dhiganayay kulliyadda qaanuunka. Waxaa la sheegay inay markaa xiriir la lahayd nin kale, halka Zelensky uu ku mashquulsanaa taabagelinta hiwaayadiisa majaajilada. Waxa uu xiriirkooda bilowday markii Olena ka mid noqotay shaqaalaha shirkadda Kivartal 95 ee uu Zelensky ka mid ahaa aasaasayaasheeda, iyadoo u qori jirtay sheekooyinka majaajilada iyo filimaanta. Kadib waxay isguursadeen Sebtembar 2003. Shirkadda ayaa soo saarta filim taxane ah oo lagu magacaabo Jiray oo u adeega shacabka, kaasoo Zelensky ku matali jiray macallin iskuul oo si lama filaan ah ku noqday madaxweynaha Ukraine. Wixii uu filimka ku matalayay ayaa markii dambe u dhaboobay. Zelensky ayaa marar badan bogga ay ku leedahay baraha bulshada ku soo sheegtay sida ay uga xun tahay dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkeeda. Iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa waxay tiri, carruurta Ukraine waxaa mar kasta loola cararaa dhismayaasha dhulka hoostiisa ah si ay uga badbaadaan duqeynta. Ma doonayno dagaalka, hase yeeshee isma dhiibi doono oo waan iska caabin doonaa, ayay ku qortay barteeda Instagram.